السلام عليكم أصحابتا وإذن وذا السلام دمانتين درات waxaan ka soo hadlay muxuu ahaa travel insurance ama caymiska la galo markaad safar aadaysid marka dad badanaa su'aalo iga soo weydiiyey su'aalihii qaar waa kasoo jawaaba qaarna jimlaan aga soo jawaabaya tanaytud waxaan isku dayaa kulli inaan kasoo wada jawaabo insha allah laakiin markuu idin soo gaaro copy link ku sameeya repost ku sameeya kulligiina muxuu ahay like hala saaro videogan dadka kalena sidoo u gaaro fadlan adinkana repost ku sameeya dhammaantiinba adinkoo aad iyo aadna u mahadsan marka travel insurance-ga saan ku heli karaa muxuu ahay xageen ka samaystaa midda ugu horeyso oo dadka qaar ay samaystaan waxaa bangigooda ay ka samaystaan bangiga si ay aga samaysanaysaa marka waxaa waaye bangiga tanaytood mar alla markaa rabtida iska safraysaa sanadkii 2 goor 3 goor 20 goor hadaa safartid isku mid waa kuugu jiraya waxaa waaye wuxuu kaas joogto lacag ah waa bil kasto ay kaa goosanayaan bangi kasta bangiga kale wuu ka duwan yahay qaar waxay qaataan 18 pound bil walba ah waaye qaarna 25 bil walba ah waa inta u dhaxaysa qaaraa qaato bangiyalku way kala duwan yihiin nationwide way samaysaa NatWest way samaysaa Barclays way sameeyaa Lloyds waa sameeyaa ani ma soo koobi kari kulligood taasitood oo joogtada loo qaato wuxuu kaa kabar garaynaa telefoonka wuxuu kaa kabar garaynaa breakdown baabuur hadduu kaa jabo kale way kuu soo jiidayaan ayagaa baabuur kuu soo jiida kuu soo dirayaan oo kuu geynayaan garaashka kuugu dhow baabuurka aad ku samaysan lahayd intii oo 100 pound oo gooni aad dhiibi lahayd markaasaytood marka taasoo ku fiican yahay ama haddaadan taas joogtada aadan rabin waxaa ka geli kartaa keliya markaasaytood oo aad safraysid aad ka gadan kartaa insha allah laakiin muhiim waxa ah haddii lacala aa xanuunsan tahay oo kale xanuunkaada inaad sheegtid haddii kale muxuu ahaaye falso waaye muxuu ahaa invalid waaye insuransigaaga ma shaqaynayo haddii aa xanuunsan tahay tan koowaad teeda kale oo muhiimka ah lacala haddii oo muxuu ahaaye xafiiska oo arrimaha dibadda ay soo geliyeen wadamaadkaasaytood safe ma ahan yaan la aadin oo kale kaasoo kalena kama shaqaynayo insurance iska ilaaliya laakiin insurancegaas caafimaadkana wuu kaa kabargaraynaya haddii wadan kale aad aado carabta haddaa aad ama america aad aadid oo isbitaal aa gashid oo kale ilaahay nooma kas ilaahay caafimaad tamaam hana wada sii meel kastoo aan aadno waxaa kaa kabargaraynaya insuransigaaga laakiin haddii aad xanuunsantaha waa inaa u sheegtid haddaa xanuunsantaha insuransigaaga faalsoo noqonaya marka taasna ku talagala sidee kaloo ku heli kartaa taskahoo kale waad ka iibsan kartaa travel insurance waxaa kaloo ka iibsan kartaa Sainsbury muxuu ahaa waxaa meelo badan oo travel insurance travelka meesha aad ka goosanaysa tigidhkaaga ayaad ka iibsan kartaa diyaaradda aad raacaysa haddii diyaaradda aad raacaysa aad ka goosan kartaa meelaadan ka goosan karin ma laha meelo badanaa laga goostaa tigidhka meeshaa ka goosanaysid waad la gorgortami kartaa haddaa xanuun qabtana waa inaa u sheegtid marka taga travel insurancegan meel badanaa ka goosan kartaa waa sidaan horey usoo sheegay fadlan isku daya adaa igu dirqisan ahaa dhihin dad waxaa jira intay baxeen waxba travel insurance goosanin oo muxuu ahaa iska soo noqday iyagoo nabadooda soo noqday maasha allah dadkaas ilaahay ha idiin siyaadiy dad goostay waxbana aanan soo isticmaalin soo noqda iyagoo nabad qabo lacagtana ay ka baxdaa jiro laakiin alxamdulillah lacagtaada waa baxday laakiin adina ilaaha kusoo nabad celiy laakiin fikir hadday kugu dhici lahayd boorsada kaa dhumi lahayd telefoon lagaa xadi lahaa ama adiga aad dhaawac ku gaari lahaa ama muxuu ahaaye tigidka aa ka baaqan lahayd waxaasoo dhan waxaa waaye alxamdulillah adoo maskaxdaada ku degantaho walwal ku haynin aad baxday aadna soo noqotay marka insha allah waxaan rajaynayaa inaad aad u fikirtaan intaadan bixin haddaa u baahan tahay asalaamu calaykum